tan iyo bishii Diseembar sanadii 2016 markaasi oo daaha laga qaaday aaladda la yiraahdo TikTok, taasi oo dadka isugu soo gudbiyaan muuqaallo gaagaaban oo lagu lamaaniyey codad iyo heeso, kuwaasi oo lagu muujinayo shucuur laguna madadaalinaya inta badan dadka ku taxan bartaasi ayaa waxaa soo ifbaxayay dad fara badan oo naftooda u waayay aaladdaasi inay caan ka noqdaan ama lagu beegsaday iyadoo loo tixraacaya goobta markaasi ay kasoo duubeen muuqaalada. Barnaamijkeennii hore waxa aan ka soo hadalnay dhibka ay leedahay aaladda TikTok-ga iyo dhammaan waddamadii ka muujiyey walaaca in dhammaan xogaha ku jira aaladdaasi aysan ahayn kuwa nabdoon oo ku jira gacan ammaan ah. Barnaamijkeenna maantana waxa aynu uga hadli doonaa dhowr dil oo sabab u ahaa TikTok-ga, kuwaasi oo ama loo beegsaday inay iyagu caan yihiin ama sidoo kaleete dad u beegsaday inay kusoo caanbaxaan bartaasi TikTok-ga. Daawade, haddii aad ka hesho muuqaalkani, fadlan adigoo mahadsan like saar si aynu u soo badinno. Mahadsanid. Barnaamijkeenna waxa aynu ku bilaabaynaa Mo Hit Mo oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa waddanka Hindiya, gaar ahaan magaalada New Delhi, halkaasi oo uu ka ahaa macallin bixiya casharada jiimka. Mo Hit Mo ayaa waxa uu bartani isticmaalkeeda bilaabay muddo gaaban, isagoo soo dhigayay muuqaallo kooban kuwaasi oo uu ku soo jiidanayay dad fara badan oo ku noolaa dalkaasi Hindiya, ilaa markii dambe muuqaaladiisii ay noqdeen kuwa shaac baxay oo dhammaan dadka Hindiya ku nool intooda badan ay jeclaysteen inay daawadaan. Mo Hit Mo oo page-kiisa ay ku taxnaayeen in ka badan 449,000 oo qof, sidoo kalena like ay saareen in ka badan 9 milyan oo qof, ayaa waxa uu noqday mid la jeclaystay qaabka uu wax u soo tabiyo iyo sidoo kaleete madadaalooyinka uu bixiyo. Magaca Mo ayaa waxa uu noqday mid loogu hadalhayn badan yahay magaalada New Delhi iyo sidoo kaleete dhammaan qaybo ka mid ah caalamka. Waxa uu ahaa mid ka soo caanbaxay bartaasi isagoo weliba muuqaalada uu soo dhigo sikimo gudahooda in ka badan kumanaan ay ku daawanayeen muuqaalkaasi. Laakiin Mo oo ahaa mid mar walba jecel inuu sii horumariyo ganacsigiisa iyo waxyaabaha markaasi isagoo u dareemaya inay naftiisa kobcinayaan, ayaa waxa uu ahaa mid heshiis la galay koox markaasi isaga uusan u dareensanayn inay burcad tahay, laakiin sida xaqiiqada ah dowladda Hindiya ay sheegtay inay burcad ahaayeen, kuwaasi oo kula heshiiyey inuu ka iibsado dhul. Bilowgii sanadkii 2019 ayuu Mo waxa uu ku iibsaday kooxdaasi dhul, isagoo kula heshiiyey in lacagtooda si tartiib tartiib ah uu u siin doono. Laakiin nasiib darro, ninkii ka tirsanaa kooxdaasi oo la dhihi jiray Nandu Gain ayaa waxaa dilay koox kaleeto oo isaga ka soo horjeeday. Taasina Mo waxa ay sababtay in uu diido lacagtii dadkaasi uu kula heshiiyey inuu bixiyo, maadaama qofkii isaga ku lahaa uu dhintay, isagoo ku andacoonayay in lacagtaasi qofkii xaqa u lahaa uusan joogin, sidaasi darteedna uusan diyaar u ahayn inuu bixiyo wax lacag ah oo ku tacalluqa ganacsigaasi. Kooxdani ayaa dhowr jeer waxa ay u yimaadeen wiilkani si uu lacagta u bixiyo, taasi oo cadad ahaan lagu sheegay inay gaaraysay 40,000 oo dollarka Mareykanka ah, laakiin isaga waxa mar walba uu soo taagnaa ayaa waxa ay ahayd lacagtaasi inuusan marna bixinaynin, diyaarna uunan u ahayn inuu iyaga ku wareejiyo. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo jooga xaruntiisa shaqada ee jiimka, ayaa waxa u yimid 3 wiil oo ka mid ahaa kooxdaasi, waxa ayna ka codsadeen Mo inuu bixiyo lacagtii, laakiin waa uu ku gacan sayray. Kadibna waxay ula soo baxeen bistoolado, waxa ayna ku dhufteen 13 xabadood, kuwaasi oo uga dhacay inta badan meelaha halis ah. Sidaasi ayuuna isla markiiba ku nafbaxay oo uu ku dhintay. Isla markiiba goobtii waxaa soo gaaray booliska dalka Hindiya, ayagoo nasiib wanaag ogaaday halkii laga soo diray 3 wiil, dibna u tixraacay qofkii soo diray iyo weliba sababtii loo soo adeegsaday. Waxaa soo adeegsaday sida ay booliska sheegeen Sandeep Pahelwan oo ahaa madaxii kooxdaasi. Sida booliska ay sheegeen, Sandeep ayaa 3daasi wiil waxa uu soo dhiibay 3 bistooladood si ay u soo dilaan ninkaasi ah Mo Hit, balse ugu dambeyn Mo Hit ayaa waxa uu noqday mid sababsaday
caanimadiisa sababtoo ah goobta uu joogo halka lagu ogaaday ayaa waxa ay ahayd muuqaal markaasi uu soo dhigay bartiisa TikTok-ga isagoo ku sheegaya daqiiqado ka hor in uu joogo xaruntiisa shaqada. Sidaasna waxa uu ku noqday mid sababsada codkii iyo muuqaalkii isaga uu dhigay. Qofka labaad ee bartani sababsaday ayaa waxaa la yidhaahdaa Ashwini Kumar. Waxa uu isna u dhashay dalkaasi Hindiya, waxa uuna ka soo jeeday Uttar Pradesh oo ah gobol ka tirsan dalkaasi Hindiya. Ashwini Kumar oo ahaa 33 jir ayaa markii hore ee bartaasi isticmaalkeeda uu bilaabayay waxa uu ahaa mid aanan sidaasi caan u sii ahayn, isagoo jeclaa mar walba qaabka dadka kaleete ay kusoo caanbaxeen inuu isagana kusoo caanbaxo. Wax walba oo uu sameeyey waxa uu dhaafi waayey in yar oo like ah iyo sidoo kaleete daawasho aanan sidaasi isaga usii farxad gelinin. Taana waxa ay sababtay mar walba inuu Ashwini isweydiiyo sababta dadka kaleete muuqaaladooda aadka loogu daawado weliba ay u helaan like-ta foolul caqliga ah, isagana uu mar walba oo uu wax soo dhigo in yar ay u daawato. Waagii dambe ayaa waxa uu bilaabay inuu soo dhigo muuqaalo markaasi dadka ka yaabiyey, weliba dadka qaar ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwo waali ah. Muuqaalada markii uu soo dhigay kadib ayaa waxa ay dadkii bilaabeen in ay uga soo falceliyaan falal aflagaada ah iyo weliba niyad jabin ah. Maalinba maalinta kasii dambeysa Ashwini waxa uu ahaa mid kasii carooda qoraalada dadkaasi ay usoo diraan, isagoo videoga ka dambeeya soo dhigayay waxyaabo dadka ka yaabiyo, ilaa markii dambe heer uu gaaray inuu isticmaalo maandooriye uu naftiisa ku raaligelinayo, taasi oo inta badnayd dadkii isaga saaxiibadiisa ahaa iyo waalidkiisba ka yaabisay. Muuqaalada uu soo dhigayay oo ahaa kuwo aad dadka ay uga argagaxaan ayaa markii dambe waxa uu kusoo gabagabeeyey in wax walba oo isaga uu leeyahay al-ultimo uu gacantiisa ku baabi'in doono. Falkaasi oo ka yaabiyey dhammaan dadkii isaga yaqaanay iyo waalidkiisa, kuwaasi oo booliska ku wargeliyey in wiilkani Ashwini uu qorsheynayo in uu isdilo. Laakiin booliska oo la kulmay kadib, Ashwini waxa uu yiri, anigu waxaasi waa aan iska dhahayay, igamana ahayn markaasi wax aniga aan damacsanaa in aan sameeyo, laakiin madadaalo ayay iga ahayd. Balse wiilkii waxa uu noqday mid maalinba maalinka ka dambeeya sii wada muuqaaladii uu soo dhigayay, halka dadka isaga daawanayana ay ahaayeen kuwo ugu soo jawaabo qoraallo isaga kasii caraysiiya. Dhanka kale muuqaaladiisi ayaa waxa ay bilaabeen in dad fara badan ay sii daawadaan, taasi oo dhanka kaleete Ashwini isna dhiirigelisay, muujisayna in muuqaaladiisa la xiiseynayo. Sida ay booliska u sheegeen dadkii yaqaanay Ashwini, ma uusan ahayn mid fal dambiyeed lagu yaqaanay. Maalin maalmaha ka mid ah Ashwini ayaa waxa uu aaday mid ka mid ah baararkii ku yaalay magaalada, isagoo halkaasi kula kulmay laba qof oo dhalinyaro ahaa oo meesha ku shaahaynayay. Isla markiiba Ashwini waxa uu la soo baxay bistoolad, waxa uuna bilaabay in labadiba uu halkaasi ku dilo, isagoo muuqaal yar oo koobanna ka duubay. Goobtii ayuu iskaga baxsaday Ashwini, waxa uuna aaday goob markaasi aanan la garanaynin. Booliskii ayaa goobtii soo gaaray, waxa ayna bilaabeen in dadkii goobta joogay ay wareystaan. Kadib tilmaamo iyo faahfaahin dheer oo la siiyey booliska, waxa ay ogaadeen in ninkaasi uu dilka ka dambeeyey, laakiin waxa ay ku wareereen halka laga heli lahaa. Maalmo un kadib ayaa haddana waxa uu tagay gabar ay is yaqaaneen oo waa hore ay sheekaysan jireen gurigeeda. Albaabkii marka uu qaraacay kadib waxaa ka furay hooyadeed. Gurigii ayuu gudaha u soo galay, waxa uuna weydiiyey in gabadhii ay joogto iyo in kale. Markii loo sheegay in gabadhii ay joogto ayuu horay u dhaafay, waxa uuna si toos ah u aaday goobtii ay ku sugnayd gabadha, isagoo dhowr xabadood ku dhuftay, gabadhiina halkaasi ay ku dhimatay. Waa uu soo cararay, waxa uuna soo aaday meel ka mid ah magaalada, halkaasi oo uu ku dhuumanayay muddo, ilaa markii dambe uu go'aansaday inuu isaga soo cararo magaaladii isaga uu ku noolaa, uuna yimaado magaalada New Delhi, halkaasi oo uu lahaa waxa aad ka heli kartaa gabaad. Balse waxyaabaha la yaabka leh ayaa waxa ay tahay muuqaalada ka koobnaa ee uu ka duubay dadkii uu dilayay dhammaan waa uu haystay. Waxa uu si dhuumashaal ah ku soo raacay bas u soo socday magaalada New Delhi, laakiin nasiib darro waxaa dhexda kula kulmay booliskii. Ninkan markii ay ka shakiyeen
ayaa waxa ay ku amreen inuu ka soo dego baska, laakiin nasiib darro ashwini oo markaasi ku hubaysnaa bistoolad ayaa madaxa iska saaray, kadibna 2 xabadood isku dhuftay, sidii ayuuna ku dhintay. qofka saddexaad ee barnaamijkeena aynu ku soo qaadan doono ahna midda ugu dambaysa ee sababsatay TikTok ayaa waxaa la yidhaahdaa Shivani Kumari. waa gabar u dhalatay dalka Hindiya, waxa ayna ku soo caanbaxday bartaasi TikTok-ga iyadoo mar walba oo ay muuqaalo soo dhigta ay ahaayeen muuqaaladeeda kuwa ay dadku aad u jeclaystaan, weliba daawashadooda inta badan dadka ay ku farxaan, loona soo muujiyo in ayada taageero loo hayo. Shivani waxa ay ahayd mid la nool walaasheed oo degganayd dalkaasi Hindiya, waxa ayna ahayd gabar mar walba jeclayd inay horumar gaarto. Shivani ayaa meel ka mid ah magaaladii ay ku noolayd markii ay TikTok caan ka noqotay kadib waxa ay ka furatay saaluun. goobtaasi oo ahayd goob aad dadka ay u soo aadaan, xiriir wacanna siisay dhammaan taageerayaasheedii TikTok. waxa ayna ahayd goobtu mid aad mar walba mashquul u ah oo ka dhigtay Shivani mid ganacsigeedu uu cirka isku shareero. laakiin waxa xusida mudan ayaa waxa ay ahayd Shivani mar walba in ay jeclayd daqiiqadba daqiiqada ka dambaysa in muuqaalo kala duwan ay soo dhigta barteeda TikTok-ga, weliba dadka ku xiran ay ahaayeen kuwa sugi jiray inta ay muuqaal ka soo dhigayso, kadibna ugu jawaabi jiray qoraallo, like iyo wax walba oo markaasi iyada farxad gelin jiray si ay markaasi u soo badiso fiidiyoyadeeda. Shivani waxaa barta TikTok-ga ka jeclaaday wiil ka mid ah wiilashii ku noolaa dalka Hindiya, waxa uuna mar walba ugu soo jawaabi jiray qoraallo jacayl ah, laakiin iyadu ma aynan ahayn mid niyad u hayso wiilkaasi in ay codsigiisa ka jawaabto. maalinba maalinta ka dambaysa wiilkaasi waxa uu ahaa isna mid qoraal u soo diro muuqaaladeedana ku sii baahiya bartiisa, isagoo weliba u muujinaya inuu aad u jecel yahay. maalin ayaa waxa uu ugu yimid goobteedii shaqada, waxa uuna ka codsaday in codsigiisa ay yeesho, laakiin Shivani oo markaasi ay ka go'nayd inay heer ka gaarto ganacsigeeda, sidoo kaleetana ahayd mid mar walba ku mashquulsan howlaheeda shaqo, ayaa waxa ay wiilka u sheegtay in aysan diyaar u ahayn. muddo yar gudaheeda ayay Shivani waxa ay ku noqotay caan, waxaana soo codsaday shirkado ku yaala waddanka Hindiya iyadoo loo soo jeediyey in ay heshiis la gasho shirkadahaasi una xayeysiisa alaabtooda. dhanka kale, wiilka Shivani jecel oo ay boolisku ku sheegeen Arif ayaa isna waxa uu ahaa mid maalinba maalinka ka sii dambaysa jacayl waali ah u sii qaada gabadhaasi. bartamihii bishii Juun sannadan 2020 ayaa Arif waxa uu ugu yimid goobteedii gabadha, isagoo markaasi iska dhigayay qof iyada soo booqday. waa uu afduubay, isla markiina waxa uu gudaha u geliyey goobteeda shaqada qol gudaha uga yaalay, halkaasi oo uu ku dilay. meydkina waxa uu ku qariyey sariir halkaasi taalay hoosteeda. sidoo kaleete Arif ayaa gacanta waxa uu ku dhigay gabadhii moobaylkeedii, waxa uuna muddo maalmooyin ah go'aansaday inuu matalo gabadhii oo uu dadka iyo dhammaan qaraabadeeda u sheego in gabadha Shivani ay ku maqan tahay safar. muddo markii uu fariimahaasi dirayay ayaa gabadhii la dhalatay Shivani waxa ay timid goobtii shaqada, balse markii ay gudaha u gashay ayaa waxaaba goobtii ka soo baxayay ur aad u qarmuun. kadib booliskii ayay u yeertay, waxaana la baaray dhammaan goobtii shaqada, laakiin nasiib darro waxaa gudaha laga helay meydkii Shivani. halkaasi ayayna ku soo ekaatay gabadhii Shivani ahayd riyadeedii. daawadayaal, intaa waxaynu kusoo koobaynaa barnaamijkeennii aynu ugu hadlaynay dhimashooyinkii ay sababtay barta TikTok-ga. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.